السلام عليكم وولالكين علي عسوي وعربا ماتا إنا إذن لو وداقو مالين قيمي بدن مالين أدوين الله وينه مالين حدينو دادك الري جبوتين نهاي آن موغن نهاي مالين كاسي وحانده كرا وهويدي مالين كا وين أين حسنو تضبية لباتنكا بيش اللحاد أم تضبية لباتنكا جون مالين كاس هو يديد أيان ديه كرانوغو مالين كان أن إدين سوودو مالين كي ويه او جوجل حادي مالين كا تضبية لباتنكا جون ومالين كي دادك ري جبوتي ايقو أنصدين إن أي ريريدي دولي نمدا دولميغا guumaysiga ay iska dhigaan waa maalinkii dadka reer Jabuuti dhammaantoodba intay midoobeen ay idhaahdeen dooni mayno guumayste waxaanu rabnaa gobonnimo iyo madax bannaani maalinkaas ayay dadka reer Jabuuti xoroobeen maalinkaas ayay dadka reer Jabuuti dadnimadoodii iyo karaamadoodii ay la soo noqdeen maalinkaas ayaana u gogol xaadhay maalinka maanta aynu xusno ee 27 Juun maalintaasi waa maalintee maalintaas waa 8 May 8 May waxay ahayd maalintii aftida la qaaday ambasa afka qalad loo yaqaano referendumka waa maalinkii ummadda reer Jabuuti la weydiiyay maxaad rabtaan ma gobonnimaad rabtaan inaad madax bannaanaataan mise inaad ka sii mad noqotaan guumaystaha dhammaanba dadka reer Jabuuti maalintaas waxay u midoobeen ay idhaahdeen waxaanu rabnaa madax bannaani maalinkaas weeye waxa uu dalka jamhuuriyadda Jabuuti u xoroobay maalinkaas weeye waxa ummadda reer Jabuuti dhammaantoodba bashbash iyo barwaaqo iyo farxad ee u bilaabantay maalintaas ay ahayd dadka reer Jabuuti waxay go'aankooga ay gaadheen 8 May maanta xaqiiqada markaan eegno 8 May haddaynu weydiinno caruurteena iska daaya annaga ma aragtay wixii 70kii dhashay ilaa hadda haddii la weydiiyo 8 May waa taariikh nuucma inteena badan garan mayno 8 May waxa ay ka dhigan tahay iyo qiimaha ay leedahay 8 May waa maalintii qarannimada maalintii weeyaan hooyada qaranka haddaan u soo laabto 27 Juun dad badan iminka oranayro ma taariikhdu ma saxaya 27 Juun daawade ma ogtahay inaysan ahayn maalin go'an oo la qaatay kolkii hore go'aanku wuxuu ahaa 1 July ayaysan nala gaadhin go'aanku wuxuu ahaa 1 July ayaysan nala gaadhin bay ahayd waxay noqon kartay 30 Juun waxay noqon kartay 29 Juun waxay noqon kartay 28 Juun waxay noqon kartay 27 Juun waxay noqon kartay 26 Juun midkay doontay noqon kartay laakiin go'aanku wuxuu ahaa 1 July ayaysan nala gaadhin ka hor waa inaynu siimnaa ka guumaystaha keenana aan saarnaa ka nasiib ka nasaar ka hor waa inuu dhacaa bay ahayd markii dambe ayaa laysla ogolaaday 27 Juun matalan kaba soo qaadba carooska dadku inta badan waxay isweydiiyaan goorma ayuu dhacayaa halkeebuuna ka dhacayaa laysma weydiiyo ma dhacayaa caroosku sababtoo ah caroosku waaba la heshiiyeyba waaba dhacayba laakiin waxa weeye goorta uu dhacaya iyo meesha uu ka dhacayo bay dadku isweydiiyaan kolka 27 Juun een xusno waxay ahayd goorma ayaynu ka dhignaa carooska iyo xafladda iyo dalbaadega oo si officially aan ugu dhawaaqnaa ma ahayn goorma ayaynu gobonnimo helaynaa ma ahayn gobonnimo waaban helnaba 8 May ayay dadka reer Jabuuti go'aan gaadheen
inay madax bannaanidooda la soo laamaan 8 May bayna la soo laameen madax bannaanidooda kolka daawada waxaan kuu sheegayaa 8 May waa maalin qiimi badan laakiin waan halmaamnay dowladdana waxaan si sharaf leh uga codsanayaa maalinkaasi inay ka dhigto maalin qaran ummaddana la baro maalinkaas ubadka iyo jiilka dambana la baro oo loo sheego maalinka qiimaha ay leedahay inay tahay hooyadii 27 Juun waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته